السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرتنا ضوطي ميل والبعض جوجتان وصاحبكين عوكيرا مقدشة في نوع نقد وريسان غير هبي وراكسن كيا وسفير كي صوماليا سعي رسي ونيرتي سفير كي ذا الصومالي دولة كيا يا حرير كوجرتي صوماليا يضا ويرتي سفير كي ذي صوماليا اسلمر كان سعي رسي سفير كي صوماليا كيا ترسن حلي حيسد بالماسيدة ذا يكدح دل عدي لبدا الدولة دول كيا يا أرنتان سبب وقردكتين صوماليا اي حراشتي حرمو shidaal oo ku yaala dhul ay leedahay kenya intii uu socday shirkii shidaalka Soomaaliya ee London sida uu sheegay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamo safiirka Kenya Soomaaliya Lieutenant General RTD Lucas Thombo ayaa loo sheegay inuu si degdeg ah ugu soo laabto Nairobi si arrimahan loogala hadlo xadgudubkan xoogan ee boobka sharci darrada ah ee kheyraadka Kenya ma noqon doono mid aan laga jawaabin wuxuuna la macno yahay daandaansi lagu sameeyay dadka Kenya iyo kheyraadkooda ayuu yiri Macharia xarashkan naxdinta iyo daandaansiga leh wuxuu mudan yahay oo uu la kulmi doonaa diidmada isku duuban ee dadka Kenya oo dhan iyo sidoo kale dadka aaminsan joogtaynta xeerarka iyo kala dambeynta caalamiga ah iyo in xal sharciyeed oo nabad ah laga gaaro muranka ayuu yiri xogayahaasi Kenya ma aysan shaacin dhulka ay sheeganayso ee dowladda Soomaaliya iyo shidaalkii ku jiray dhulkaasi xarash gelisay si kastaba waxay u muuqataa in arrintan ay la xiriirto dhulbadeedka muranka uu ka taagan yahay ee Soomaaliya oo horay ay Kenya u sheegatay iyadoo ku doodaysa heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya ee 2009 heshiiskaasi oo uu diiday baarlamaanka kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa waxaa saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga kiiskaasi ayaa waxa uu hadda yaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka waxay ugu yeereen The Hague iyada oo la sugayo go'aanka kama dambaysta maxkamadaasi akhiray waad mahadsantihiin arrintan waa arrin aad u culus weeyaan waa arrintii ugu xalisneed ee dowladda federaalka Soomaaliya soo wajahdo wadan ay daris yihiin ciidamada Afrikaana ka joogaan de go'aanka iyo masiirka dowladda federaalka Soomaaliya ka sugaynaa waxay ka qaadataan ka sugaynaa dhulka anaga ayaa iska leh baarlamaankeenii u baadiiday ninkii xilligaasi saxiixay ku meel gaar bay ahayd dowlad rasmi ma aysan ahayn dowlad go'aan gaari karta wax saxiixa karta ma aysan ahayn mandate-ka uma ogolaanaynin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame saacada laga bilaabo dambiile qaran oo dadka Soomaalida dambi ka galay hase ahaatee baarlamaankii ku meel gaarka ayaa cagta ku dhuftay marka Kenya ayada ayaa daandaansi wada dhulkeena nalama maamusho waxay ka heshay ay leedahay shacabka Soomaalida waxa loo baahan yahay taageero weyn inay muujiyaan saaxiibayaal qaybta hoose commentiga ayaad ku taageeri kartaa dalkaaga iyo dadkaaga halla hagranin fikirkaaga saliimka ah aad ku difaacayso dalkaaga iyo inaad muujisaan emotionkiina dareenkiina aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal qaybta hoose ayaan idinka sugaynaa iyo sida aad u soo falcelisaan abin wanaagsan wixii ku soo kordha qodobada